هذا واحد أنا قوري يعني قاعد ما راعي تولد هذا إسك حاضرنا يا كده بنروح عليه هاي ريه بالهبل قوري جودي قوري جينا مركل إيجينا هو إذا ما فرتك ساري أبغى ترى حرتنا وفكرة وحير واي هيتة حال كلام مشري سكول كي عنو هذي مراقيه بدل كو أقصى هذي قبل عرفتي دي بقاري قوري وحولنا مري وين قوري ناي ويقورين صدح بري كدب reerkoodii hooyadeed walaalkeed way macsalaameeyeen waxay tiri daan ugu tuulada inaan deganaa aan ku qasbanahay sababtoo ah ninkay laba meel oo kala fog kuma noolaan karno waxaan rabaa carruurta aabahoodii hooyadood inay ku dhex koraan ninkan inuu carruurta mas'uuliyadeeda ila qaado ilaahay ila koriyaan rabaa ma raba aan kaliya carruurta inaan koriyo waxaan rabaa inaan hal meel ku wada noolaano gabadhi waa macsalaameeyay reerkii gaari bay raaceen tuulada uu aaday ninka Cabdisalaan hay reerkiisii tuulada aaday saddex bari kadib number aan garanayn baa wuxuu soo wacay reerkii gurigooda waa ninkii Saalax ahay hooyadii صالح بقى تلفونك قبطي صالح تلفونك أساس هدوء قبطي عنقي يرى ولا شيء أي شيء فوسي عنقي دي وينه بابا تلفونك كده حضر لي بقى أبتي صالح ويسوي وي عنقي رأت وعبسني أبتي إيمو أبتي وان بقي أقولك واقع يا أبتي محاكو داعي أبتي حقيت شوكتا أبتي محاكو هلاي قف كله بقى تلفونك كقاعد مرك وقف وينه وحير عنقي ير مقرنا يسوي وحير وان قرنا يا عنقي ولا شيء بعد شيء محاكو داعي وحير ويلك ير waxaan ka helay buu yiri jidka isagoo aad u cabsanaya oo lunsan jidkee xagee joogtaan wuxuu waxaan joogaa Banqaasi marka wuxuu cunugan isagoo ooyayo wuxuu hareeraha saas u fiirfiirinayo meel uu aad garan la ban meel jidka ka soo helay kadib wuxuu yiri marka gurigaygan geeyay meel baan fariisiyay cabaar markaan hayay oo biyo iyo wax inta la siiyay naxdintii ay ka baaday baa waxaan ku yiri marka ma garanaysaa gurigiina numberkiisa ma garanaysaa wuxuu yiri maya gurigayga numberkiisa ma garanayay taleefanka ayay gurigeeda تلفونك يا نمبر كيسو قرني مرة عنو قال وكرك كحفتسنا أو أبتيجي بحد كهر نمبر كحفتسية أي يدو لاين كجوري جدي على نمبر كيس أبتيجي صالح لهذا ويل كير كحفتسية أو حفتسنا نمبرك مرة ساس ترتيب تنكو قصة وعي كاله ويل كير كأويمو نمكي ده صالح واقع ياوي تدك واقوي جوري تولد جوري محاول كودير كبنقاس جيم دك الويل كير محكلمي كبردي سيدي أقولتي سيدي حبري بي مقنط حيرير كودي ميلا صوحرين tuulada iyo ninka Cabdisalaan magaciisa buu garanayaa Saalax laakiin nambaradooda ma yaqaan iyo guriga de Cabdisalaan reerkooda wax nambar kama hayo ninkii waa ka gaar qaatay orday Banqaasi buu tagay ninkii buu de markii uu la hadlayay ciwaankiisa wax walba ka qortay gurigii wiilka yarka lagu hayay buu abtigi tagay saantu wiilka yar oo arkay abtigi buu ku soo orday markay dadkii arkeen wiilka yar qofkan inuu garanayo abtigi uu yahay baa lagu wareejiyay waxa wiilka jidka ka helnay de abtigi soo mid la wareeg dadkii buu mahad celiyay wuxuu wad mahadsantiin wiilkii yar buu qaaday marka ninkii Saalax ahaa wuxuu geeyay tuuladii Cabdisalaan iyo dadkii sidoo u tooynay uu lahaa Cabdisalaan hebel ma taqaanaan Cabdisalaan hebel ma taqaanaan waxa la geeyay gurigii Cabdisalaan iyo gurigii albaabkiisa garaacay waa xilli galab marka xilliga uu tagayo guriga waxa ba furay albaabka ninkii Cabdisalaan saantu albaabka u furay waa ka indhaha taagay ee naxay ee yaabay alla wiilkayga yaraa lagu iga lumay la xageed ka keentay la wad mahadsantay Saalax kaale soo gala gurigii bay soo galeen qol meeshan oo kale albaabkiisu furay yahay buu yiri gal albaabkii buu hoosta ka soo xiray wuxuu yiri halkan soo fadhiista bal aaba waadiga luntay wiilkiisa yar abu habsiye wuu dhunkaday ninkii Saalax wuxuu ku yiri marka maxaa wiilka yarka lumiyay mid kale maxaa wiilkiina Banqaasi geeyay bal iga dabagay aaway mid kale gabadhii ahayd Fawsiya wuxuu yiri Fawsiya markaan soo raray iyada qasab ku soo goortay anu inay soo goortay ma rabin marka wuxuu yiri tuulo kale oo dhow oo tuulo kale oo yar ah oo halkaas ku taala baan iyada geeyay iyo carruurteeda kadibna wuxuu yiri alaab ay u baahan yihiin baan rabay inaan Banqaasi uga soo iibiyo wiilka yarna anigu i raacay suuqa dhexdiisa wuxuu igaga lumay marka wiilka yar waaban waayayba khayr Allah ku siiyo adaa soo helay seed ku soo heshay wuxuu yiri lambarkaygu xifdisan yahay wuuna soo wacay marka kadibna de markaas soo kaxeen halkan keenay kaalayo walaashay isoo tus intaana noqonin oo caasimada ku noqonin marba hadan tuuladan dhawey walaashay ay degan tahay sheegaysid kaalayo igee aan soo arkay namay soo wicin dhowrka bariid naga soo maqantay maxay noo soo wici laadahay wuxuu yiri guriga aan geeyay waa guri yar oo iska meel gaadhuna gurigan aan rabaa inaan keeno marka gurigaas wuxuu yiri telefoon kuma jiro asaas ma idii gabadh yarid baan rabaa wuxuu inaan soo arkay kaaligame wuxuu maanta waan mashquulsanahay walba igu furan mar kale soo noqo mar kale aan ku tusi doonaa hada waan ku bariyaa iska tag wiilkii uu iska baxay cunugii yarka ahaa wuxuu yiri marka wali reerkayga uma sheegin inaan carruur dhalay iyo inaan xaas leeyahay waxba uma sheegin waxaan ka baqayaa dadka hortooda inuu aaba yiraahdo waxaan ka baqayaa inuu ika shifo de wuxuu yiri sababta nin dhan oo reer la tahay u qarinaysa reerkaaga anu ma garanayay u sheeg dadkaaga cunug geerina adigu dhashay reer kalena leedahay u sheeg midda kale isbuuc kadib baan kugu soo noqonayaa walaashay soo raro halkan keen oo isbuuc kadib markaan soo noqdo halkan iyadoo degan aan u imaado hadii kale meesha ay degan tahay inaad geesiday markaan noqon walaashay baan rabaa naalamay soo hadal dhowr bari
marka inaan arkaan rabaa bal xaaladeedii say tahay inaan arkaan u baahanahay wuxuu yiri haye war iska tag hadda ninkii cunugii yara wuxuu ku wareejiyay aabihii gaarigiisii buu qaatay caasimadii buu iskaga laabtay ninkiina cunugiisii raabo dee salaamayo ku gagabsanayo laha wuu iga lumay laakiin saalax wuxuu la yaabay sababta wiilkan yarka banqaasi uu ugu lumay sababta hadduu lumay xataa gabadhii muxuu gurigan u keeni waayay saalax isagoo aad u yaaban buu iska tagay 7 beri buu maqnaa gabadhii foosiyada 7 beri hooyadeed iyo walaalkeed midna may wicin ninkii saalax wuu yaabay wuxuu yiri walaasha maxaa ku dhacay talo ninkii armuba siduu u qarinayo u lahaa inaan xaaskayga wali uma sheegin dadkayga armuba meel ku xidhay gabadhii armayba maxaabiisantahay ninka u maxbuusantahay meel ku xidhan tahayba ninkii gaarigiisiiba soo qaatay tuuladii buu yimid cabdisalaamkii buu yimid wuxuu waxaan u baahanahay walaashay tuuladii aad lahayd way degan tahay wuxuu horta walaashay aaway wuxuu walaashay halkan ma degan deeyso kuma sheegniyo soo soo hadal hay ka shifin ilaa hadda hay ka shifin maad ku jirtaa ilaa xiligan wuxuu walaashay kaali iibke wuxuu hadda waan mashquulsanahay oo shaqo iyo hawl iyo waxbaan haystaa mar kale aan ku geyn doonaaye caawa iskala kaayay joog iska seexo bari subaxii baan ku geynayaa marka walaasha wuxuu soo digay tuulada way dhawdahay tuuladeeday u dhawdahay waa meel oo halkan oo maalinkii oo dhan wuxuu halkan aan joogaa oo waxaan maamulaa beerahan iyo waxaan iyo hooyadii baan ka ag muuqda galabkiina waan rawaxayo tuuladaas aan aaday habeenkii foosiyay carruurteeda la soo seexda soo saa'imaad oo dhan soo tuuladu ma dhawa تكالي وحير إيجي كدبنا إيجا صار نقاضو هذا تربتي ما يوحي وان مشغول صنع هاي صبح حبا كوجيني عاون لجوج إسكاسيحة صبح هنا كوجيا ما شرتو هاي إنا سيحة ما يشان أنا ما إيمانني ولا شيء إنا أركان وإيمت كالي وجري ولا شيء إيجي وان مشغول صنع هاي شقان هاي استوى حر إيه البان بس تولد ما يعيدوني شيء بس يجري أي تقطع حفظة كده تولد وحير ما يعني أنا وان مشغول صنع هاي نيو مرة بقينا أنا كحياة هاي ولا شيء تولد دقنت ما قاعد ونيشق نقنك واكدي تولد ما قاعدين وشاق كالي كحياة وان مشغول سنة تولد ما قاعد يشق markii dambe wuxuu yiri meel beer ah oo magaalada duleedkeeda oo beeraha iyaga kamid ah guri 3 qol oo ku yaala baan gabadha dajiyay tuulo ma dajinin haye kaale oo beerta igey de wuxuu yiri suuq horta beertii markaan gabadhii caruurteedii geeyay siday halka iigu deganaayeen wuxuu yiri ma garanayo wax ku dhacay gabadh kale aan guursaday gabadh kale maqashay baan u malaynayaa inay xanaaqday oo maseertay baan u malaynayaa kadibna caruurteediina way la baxsatay ayadiina way baxsatay farba kuma hayo walaashay caruurteedii حاجة وبحثت مركز ده بحثت مي أنا جنوتي ما ضو وحير ما قرنا يا وحنا ملايين يعني هبت إني إجا أرجو سطو عرّت هذي بيلردو ما طي ولا شهر هذه مركز أركتدنا عرّت هذي أنا هلا يسوع عليو إذا أنا دي هذي بحثتي شرف درء يسمع حماء دي هذا دونتين إنسان ولا شيء كو هيستقبل السمعة ده اللي ما بحثتي هذا ضربت أنا إذا كسر عاركيني عيبت وقبل سنة إنسان إذا كيقاني أنا عرّت هذي قبل ده على يسوع عليني وابك حنا قوي وجهك على الصباح حبا قبل إني حنت هذي بحثتي قبل كلا يوم قرص زي ما قشي مركزي لو ما طي عرّت هذي ربط إني يقفل يسوع عرّت إني إجا أرجو سطو حاجة وبحثتي مركز هذي بحثتي أنا جنوا إيمان الله يدي كله وحيري يجي ماشي ولا شيء تكنت ninkii wuu isxanaajiyay wuxuu walaasha markaan arko kawban ka siinaya carruurteeda ka soo qaadanaya waan dilay aan iga baxsanaysa soo wuxuu walaasha way baxsatay soo maaha haday baxsatay carruurtii la baxsatay anaga un bay noo iman doontahay markay timaadana carruurtaada ku keeni doonaaye dibal hayo way xidhan waa iska tagay caasimadeedii baan iskaga noqonaya wuxuu hayo way ninkii saalaxa caasimadna muu aadin meel kalena muu aadin ninkii markuu saa uga soo tagay saldhigga booliisku tagay wuxuu walaashay baa la ahay iyo laba carruur ay dhashay ninkeedii qabay baan ka shakisanahay walaashay miyuu dilay miyuu afduubtay miyuu xidhay meel miyuu ku qariyay ما قرنا يجي ميلو جاي كل ميل بيوجح حرام تاي وجمح بسنت تاي ورير كودنا وكقرنا يعني حاس كيسة تاي نين كانوا حنكروا ولا شيء ميشو جاي نين كي بالوير مركز صالحها وحن لها عبد السلام سبق بورس كالوير وحلو جود قبل سو ما قبل لرد فوس يلا بعرف ركورش ساعة سمتك ما تصوك حين ها وقبلني وحير رير كي كقرنا يو بير بانكي ميل هالكاسي إذا جنيت كدبنا وان واي أو وحن لين يعني إذا كتولد كما قشة إن قبل كلام كورس ذي كدبنا واي بحث توي لو ما طي وحرت عرّت إني لبحثت وعرّت إني يقول أنا دو ويجهر قصنيسها ماشي أيدقني تعالي نجي بوليس كيبو كحي مال بيرة أو ده بير حتى أنا لاستعمالنا إسك قديه مو وايه هر الاستعمال ترى بير أن شقين نبا وقولي سدح قول وكل حياله دوقة بوجي وحيد هالكنا نجي قبل هالكنا يكود قلني هالكنا تجيسها هاي كده دي وحيد وان واي قبل هالكنا يدقني وان واي مركو حن لين يا ضد باور أوكي قبل كلا إنا نقول سيدري ما قشي ويبحثتي meesha marka gabadha uu geeyay beerta meel uu qof war u geyn karaba maaha waa meel fog beeraha shaqeynaya oo dhan ee la isticmaalaha ka sokeeya beerta tuulada uma dhaw beer door cidla ah ku taalo guri ka dhex dhisan yahay uu gabadha geeyay yiri waxaan ka rabaa inaad halkaas ku noolaatid waxa la qof halkan ku nool qof war u geynaya ma lahe iyo qof xataa ogaanayo meesha inuu qof ku nool yahay lama ogaan karo gurigii ba galay nimankii booliiska way ka soo baxeen guriga jiko iyo masquul iyo wax walba uu leeyahay gurigii baa la galay waa laga soo baxay masquulihii jikadii wax baa la fiirfiiray meel guriga gadaashiisa ah
baa wuxuu ku arkay marka nimankan booliiska ah kamid ahi meel lagu beeray ubaxyo yani aan la waraabinin oo si u dhadharsan oo iyaga dhan si u baxdilan ubaxyadan marka la beeray meesha lagu beeray ubax isagoo yar meesha lagu beeray ama meesha inta seedkiisa lagu beeray ka soo baxay ma aha ubax isagoo yar weyn yani isagoo meel kale ka baxay baa la soo qaaday meeshana lagu dhex beeray lama waraabinin lama nafaqaynin wuu sibu u qaarqaaray u baxdilay marka ubaxu laakiin mar dhow in la beeray waa la dareemayaa ninka booliska wuxuu yiri ma jarafada iyo xagaafiyo waxa lagu qodaa la keenay meesha ubaxu uu ku beeray habashka wax badan baa meesha ku beeran laakiin ubax mar dhow baa la beeray waan lamana daryeelin ubax iska sii qalalayo weeyaanba meeshii baa la qoday marka oo dambi baadhu ka shakiyay meeshii hadii la qoday laba qof oo meeyda laga soo saaray cunugtii yareed iyo gabadhii sidoo kale marka la baaray meedadkii meeshii la geeyay mashraxada waxaa la ogaaday qofkan dumarka meesha lagu riday lagu dilay inay uur leedahay waa gabadhii Foosiyaheed marka way caddahay waa gabadhii Foosiyaheed iyo gabadheedii yareed waxaa la marka wiilkii yaraan aaway wiilkii yarka ahaan xageebaad ku aastay anigu ma aasin gurigan ku ogaa meeshan ay deganaayeen malaha waa waxaan la waayay waa la dilay ma garanaya cid dishay qof baa soo daba galay baan u malaynayaa markaas uu ku arkay meeshan beerta dadkan gabadhan iyo carruurteeda jooga kadibna malaha wuu dilay dhakhtarku sidoo kale wuxuu yiri ceejaal lagu dilay naqaska lagu dhajiyay labada qofba waxaa lagu yiri marka labadan qof inaad adigu dishay oo meesha ku aastay oo waxyadana aad ku beertay shakiga laga jiro way caddahay wiilkii yarka ahaa meeshaad geysay baa laga rabaa wiilkii uu dafray wuxuu ma arkin anigu wiil gabadhiyo labadeeda carruurtaba halkan aan ku ogaa halkan ay deganaayeen ma garanayo yiri marka cidda dishay wiilkayna malaha waa la aftoobtay wiilkayga la ii raadiyo ninkaas qaracan ha isku rido ha is oo hisiyo dib ma waxaasi booliisku ka yeelayeen wiilkii yara waxa kale isagana waa dishay oo meesha ku aastay sheeg si uu nool yahay meel buu ku xidhan yahay mise mar baad baan qaasi geysay oo isagoo meelaha ku lumsan oo abtigii wacday may abtigii wuxuu yiri wiilkii yara ma nool haduu nool yahay wuxuu isoo wici lahaa wiilkii de saalaxa uu qaraacmay markuu arkay meedkii walaashii iyo gabadh yarada abtiga uu ahaa wuxuu yiri wiilkii yarana meedkiisii meeshuu geey hal weydiin kan habaarka qaba wiilkii yarka meedkiisii sidii loo weydiinayay uu muddo u lahaa ma arkin gabadhan anigu ma dilin cidna anigu ma dilin ugu dambeyn marmarka qaar booliisku waxay sameeyeen waqtiyadii hore ilaa hadda inay sameeyeen xataa ma ogiye qofku markuu inkiro dambiga laga soo saari waayo uu booliiska waqti ka dhumiyo wareeriyo qolka mashraxada lagu sameeynayo wax lagu baarayo laftirkiisa keenaanba qofka dambiilaha halkan oo kale meedkii yaala isagana halkan la soo fadhiisinaya dambi baadhuna bartan oo kale uu fadhiisanaya markaas la wareysanaya meedkii qofkii uu dilay agtiisa lagu wareysanaya markaas uu qofkii markuu saa u fiiriyo intuu naxnuxu kala hadlo isaga dhanba saas u gargariro way sahlan tahay inuu markaas uu wax qarto ninkii sidii baa la sameeyay qolkii gabadha weyn ba lagu hay baa la keenay waa la baaray inuu gabadhii yareeyta weyn ba isagu dilay cunugiina uu dilay oo xaafadooda ku dhex aasay buu qartay marka waxa lagu yiri marka sabab maxaad xaaskaaga carruurtaada u dishay maxaad caasimada uga soo raraysay inaad disho wuxuu yiri markii hore markaan tuulada imaanayay hooyaday umba fariin ii soo dirtay waa degaysaa iyo gabadh bad guursanaysaa isma lahayn tuulada markaan imid wuxuu yiri si unbaan cisi iyo karaamo iyo madaxtinimo u dareemay kadibna gabadh baa la ii guuriyay gabadhina waxay noqotay gabadh qurux badan waan jeclaaday Foosiye iyo carruurteedii khawaadkeedii wuxuu waan iska ilaaway waxaan rabay inay Foosiyana caasimada ii deganaato dhowrkii bilood hal mar soo booqdo xaaskayga yarna halkan ay ii deganaato aniguna meeshan la iga ciseenay la iga ixtiraamay madaxdii boqor kale igala dhaqmay aan iskaga noolaado Foosiye carruurteedina caasimada ay joogaan lacagaas laakiin wuxuu Foosiye diiday waxayna ii qabatay waqti yar waqtigaas markuu dhamaadana wuxuu tuulada iman lahayd tuulada haday timaado maxaa dhici lahaa aabahay wuxuu yiri marka hooyaday aabihi uu dhintay iyo walaalahay iyo dadkoo dhan baan ku horceebo lahaa oo gabadh caasimadeed inaan guursaday bali ogaan lahaa oo gabadha aan guursaday reerkoodii dadkooda dhan waan ku horceebo lahaa sababta inaan xaas leeyahay inaan carruur leeyahay qofna uma sheegin dadka dhan hortooda waxaan ka noqon lahaa buurtay qof ceebaysan oo beenaala ah oo been sheegay oo xaaskiisii iyo carruurtiisii qariyay kadib wuxuu marka waan fikiray Foosiyana waqti bay ii qabatay waxaan ku qasbanaaday marka inaan wiilkeer iskuulkiisa waraaqaha bedelka ka soo qaado Foosiye carruurteedana aan soo raran gaari ku soo qaado meel beer oo magaalada ka baxsan meesha uu gabadhiyo hooyadeed ku duugay ah inaan halkaan geeyo waxaan ku yiri marka halkan ii jooga intaan guri iyo wax idinka diyaarinayo guri baan rabaa inaan ku diyaariyo meel baan rabaa inaan ku salaxay intaan meel ku hagaajinayo halkan ii degano waxay tiri waayahay meeshii markay muddo la bariya gabadhii deganeed sidoo u fikirayay umbuuda xilli hameena go'aan qaatay gabadhii huruuda umbuu dhuunta ku dhigay gabadhii Foosiyada xaamilada iyada iska hordan dhuunta ku dhigay gabadhii sidoo dhuunta u hay markay dhimatay umbuu tiyeerayna dhuunta ku dhigay ayadiina way dhimatay cunugiibu dhuunta ku dhigay isiro wuxuu marka wiilkii yara waan dili kari waay يعني markaas saas ugu dhaqaaqay isiraada aadashid ba ma garanay wuxuu yiri si unba qalbiga ay xanuunay inaan dilo waan ku dhici kari waay waa iska dhaafay marka isagu hurday waa xilli gabadha reerka hurdaan markuu wax dilayo wuxuu soo qaatay marka badayla iyo xagaafiyo waxba meel ka soo qaaday meeshu waa meel beer ahaan jirto xilliga beer shaqaynaysa ma aha
laakiin waxa lagu qodiyo goofiye wax kasta iska yaalaan ya sabarado god buu qoday marka guriga yarkii beerta dhexdeedu ku yaala waa markii dadku ay rabaan inay iska nastaan iyo magaalooyinka dadka ka soo tagay meelaha beeraha inay dhex degaan loogu talagalay xilliyada fasaxo kala iyo guriga yar noocaas weeyaan guriyaha nasashada guriga yar gadaashiisa god dheer ka qoday gabadhii weyneed buu ku riday tiyareedna wuu ku riday oo aasay markuu aasay meeshan si aan looga shakinin ama hadii يعني laga shakiyo meeshan la yimaado si aan loo fahmin meeshan in wax lagu aasay buu wuxuu ku beeray marka ubaxyo meel kale ku beeran buu soo qaaday ubaxyadan ku jirjira waxyaalaha geedaha loogu talagalay inay ku baxaan markay baxaan inta laga dhax bixiyo meel kale la geeyo ubaxyadaas oo kale badan buu meeshii ku beeray meeshii buu ubaxyadii ku beeray biyo ku shubay wuu waraabiyay dhulkan meeshan ubaxyada ku beeray wax ku aasay dhulkii kale wixii uu isku ekeysiyay marka si aan loo fahmin in meeshan ama qabuur ay tahay ama dhulka ay ka yara sare si aan looga shakanin buu ubaxyadan ugu beeray wiilkii yaraa buu u yimid marka wiilkii yaraa wuxuu waan dili kari waayay inaan dilo ma garanay sababta waan ku dhici kari waayay wiilkii yaraa habeenkii la seexday marka gurigii subaxii marka sida cunug yaraa u soo toosay intuu hooyadii iyo walaashii waxba tabin basaantu subaxii u soo kici rabayba wuxuu yiri kaale aaba magaaladaynu aadaynaa alaab baan soo iibinaynaa in mar hooyada iyo walaasha baan alaab soo iibinaynaa wuu raacay cunug yar waa 8 jir gaadhigiisa intuu ku qaaday cunug xad uu geeyay magaaladii weyneed ee Banqaasi oo tuulada ka fog cadbaar u jirta laakiin magaalo weyn ahaan magaaladaas ugu soo dhow tuulada magaaladii buu geeyay dukaan buu geeyay macmacaani waxba uu iibiyay meel jid oo dad badan ay joogaan oo saxmad uu istaajiyay wuxuu dhaaba halkan taagna waan ku soo noqonay uu ka soo dhoontay waxaan rabay buu marka inuu magaalada caasimada ku lumo oo ama qof uu ka haysto ama meelaha agoomaha la geeyo yacni jidka intuu qof ka qabto meel inuu geeyo ama gurigiisa hala geeyo ama meelaha agoonta hala geeyo ama dawladda faraha laga saaray waxaan rabay ama saldhig hala geeyo meel in la geeyo rabay oo uu noolaado laakiin aniga meel iga fog inuu ku noolaado wiilkii yarka hadee sidoo uu ooyay qof baa qaaday gurigiisa uu geeyay kadibna wuxuu korka ka hayaaba nambarka abtigi baa loo wacay abtigi Saalax ahaba wiilkii yara u yimid wuu soo qaaday sidoo u soo subaxuu ninkan wiilka soo luminay uu tuuray oo habeenimadiina gabdhihii dilay galabnimadeedii baa albaabka la soo garaacay haduu furay waa wiilkii yara iyo abtigi wuu naxay markuu wuxuu ku hadlo garan waayay wiilkii yarka abtigi markuu tagay inbuu da wiilkii sidoo u hayo qol ugu xidhnaa uu lahaa halkan aaba joog anaa ku imanaya ha soo bixin halkan joog waxbaan sameeynaa hooyada baan ku geynay sidoo u lahaa uma weelinayay habeen noqotay habeenkii buu dilay cunug yaraa wicii xaguu ku aasay cunug yaraa guriga ay degan yihiin reerkoodii xaaskiisa guriga ay u degan tahay isla guriga beeraha ku yaalo guriga weyn oo dhul ah weeyaan guriga uu ku dhaxaasay beerta guriga ku taal dhexdeeda uu ku aasay cunug yaraana hadana reerka gurigoodii baa la yimid meeshii cunug yar waan ku aasay baa la qofay cunug yaraa midkiisa laga soo saaray ninkii Saalax hadee uu qaraacmay wuxuu yiraahdaa hadaan ogaan lahaa wiilkii yar markaan u keenay in qofkan bahalka u soo gacan galinay uma soo gacan galiyeen Allah hadaan ogaan lahaa cunug yar wuxuu ka Banqaasi ka soo helay caasimadan geyn lahaa guriga ayadii baan geyn lahaa hadaan u maleynay inuu dhimanayo hadaan u maleynay inay waxan ku dhacayaan gacan buu qaraacmay ninkii Saalax ahaa markuu kiisku dhacay muddo dhowr bilood kadib baa mar la waraysto oo TV wareysay يعني sida wuxuu markaas u qaraacansanay u ooynayay shalay inuu kiisku dhacay oo kale waxaan ka xumahay buu mar walba markaan soo xasuusto aan ka shalaaya markasta wuxuu yiri waxaan ka shalaaya wiilkii yarka ah intan anigu soo qaaday ruux bahala inaan gacanta uga galiyo hadaan ogaan lahaa waxa ku dhacay يعني wuxuu ana iska haysan lahaa ana kursan lahaa guriga ayadii baan geyn lahaa حتى wuxuu uma sheegeen inaan wiilkii yarka helay hadaan ogaan lahaa wiilkii markaan soo kaxaynay walaashay dhimatay oo gabadh yar dhimatay wiilkii wuxuu ruuxan bahalka uma geeyeen wuxuu wiilkii yara wuu dhintay anaana u sabab ah markasta wuxuu cunug yara soo xasuustaba naftaydan eedeeya oo cunug yarkii intuu lumay oo anigu soo qaaday baan aabihii bahalka hay wax dilay dad cunkaabaan wuxuu faraha ka saaray waan ku waa ka wiilkaagii ho wuxuu mid kale waxa la rabay markii uu igu yiri kuma soo tusi karo walaasha walaashayna isoo weecweed markaas la rabay inaan shakiyo oo habeenkaas la rabay buu yani galabnimadaas la rabay inaan idhaahdo ma tagayo ilaa guriga walaashay inaad igeyso ma ahane markaas wuxuu yiri hadaan ka shifila wiilkii badbaadilay waxa wiilkii intaas saacadiisa ku dhamaatay waxba adigu naftaada ha eedaynin ninkii baa la wareystay marka ninkii dilaaga baa la wareystay Cabdisalaam waxa lagu yiri markaad lahayd ninkan la yiraahdo Saalax iska seexa caawa subaxii baan ku geynay tuulada walaasha ay degantay isaguna uu diidayay maxaad rabtay habeenkii inaad ku sameeyso laftirkiisa inaan ka takhalusan rabay oo bartan wiilkii yar ku aasay isagana aan ku aaso iska seexo subaxii baan guriga walaasha ku geynayay habeen barkii isagoo hurda ونحن مدكو بوبسيان ربي برو دكو كاسيو كدبنا ويلكي يركا godkan ku riday isagana ku rido gabadhii hooyadeedna hal qabri wiilkii abtigiina hal qabri laakiin wuxuu isaga idiiday seexaan wax walbaan wuxuu ku sameeyay nag uu diiday inuu hal habeen gurigayga seexdo Saalax saacad baa u dhinay saacadiisa dhamaanine ninkii intuu dambigii qaabkii uu galay qaabkii uu geystay oo dhan matalay oo ceeb baan ka baqayay dadka tuulada beenaalo weeyaan idhii buu lahaay beenaalo qaatila intuu noqday
وتولدي ودن ku ceeboobay oo de qof dilaa oo saddex qof dilay oo noqday ilaa ilmihiisa uu ku jiray ku dar afar qof waxa lagu xukumay in اعدامka markii lagu fulinayna dadka tuulada dhan meel ay wada joogan isku wada yimaadeen baa lagu dilay oo dilka loogu fulinay sababtoo ah waa qof si xun wax u dilay si arxan daran qofka arxan daradaas oo kale wax u dilay marka dil lagu xukumo xataa sanado badan ma sii xidhnaado wax yar markuu xidhnaado dilka waa lagu fuliyaa bala ku aragtay wuxuu ninkaasi u baabi'iyay reerkiisa dhan inaan la ogaanin inaan gabadha caasimada ku guursaday inaan la idhihin been buu sheegay inaan la idhihin reerkiisa carruurtiisu qariyay maadaama gabadh cusub guursaday oo tuulada ku soo laabtay oo nolol cusub bilaabay waxaan rabay bur noloshii hore iyo wax kasto maadiyo aan nolosheedii hore ku saabsan ba inaan masaxo foosiye carruurteeda wada dil wada aas bas nolol cusub bilow noloshii horena masax gabigeeda maadigaygaan masaxay kulaha markii la maxaa gabadhii carruurteeda u dishay oo xataa hadaan rabin guriga hooyadeed maxaad ugu dayn weyday maxaad u furi weyday xataa wadadii weyday kuma rabo carruurtaadana ma rabo guriga hooyadeed joog shaqo shaqo kugu ma lihi ma rabin bur wax nolosheedii hore ku saabsan caasimada markaan joogay wax ku saabsan nolosheedii markaan caasimada joogay adduunyada inuu baaqi ku sii ahaado ma rabin ba waxaan rabay inaan masaxo oon iska dhilidaba nolosheedii hore iyo wixii ku saabsanayo dhan hadda adna waa lagu masixi baa leeyahay marka beelaana waad noqotay dadka oo dhan way ku ogaadeen tuuladiina waad ku ceebowday qaatilna waad noqotay waana lagu dilayaa oo waa kaas waxa loogu xukumay اعدام ninka cabdisalaan marka sidaas isagana lagu dilay halka marka mar sheekadu muuqaalka like hala saaro channelka subscribe video hala share gareeyo commentiga khafiifka la diifka hal laba wixii ra'yigiina qaybta hoose faaladana ugu reeba fahmaanillah ma'a salaam wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda